aan ku bilaabay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa maanta halkaasi lagu qabtay xus ballaaran oo lagu barardiiqayay dadkii naftooda ku waayay qaraxii weynaa ee 14 Oktoobar sidoo kale munaasabadaasi ducada waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble qodobkan faahfaahintiisa waxa inoo geeyay Haajar Cabdiqaadir اللهم إنا نسألك عيش سعداء وموت شهداء والنجاة يوم المحشر والهداية من الضلال. si ka duwan labadii sano ugu dambeysay ayaa loo xusay sanadkan dadkii ku geeriyooday qaraxii Soobe 14 Oktoobar 2017 Qur'aan ayaa loo aqriyay marxuuminta waxaana kulanka oo lagu qabtay Muqdisho ku sugnaa ra'iisul wasaare Rooble wasiiro culamaa diin ururka haweenka qaranka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda qaabta arrimaha diinta Umar Faaruq ayaa soo jeediyay in loo kaalmeeyo agoonta iyo rajada waalidkooda ku baxay qaraxyadii dalkan ka dhacay gaar ahaan 14 Oktoobar waxay ahayd musiibo qaran waxay ahayd musiibo ummadeed waxay ahayd musiibo caalami ah lagu tilmaami karo runtii wixii maalinkaas dhacay waxa ku laado ku baaba'ay nafaf abriye ah oo waxba aan galabsanin waxa ku agoontoobay agoon aad iyo aad u tiro badan waxa ku baaba'ay oo magaranaysaay lagu waayay hanti iyo magaranaysaa wax badan marka runtii wax la ilaabi kara ma aha waxa kaliya oo looga bixi karo runtii maanta dhibaatada haysta waxa waaye fafirru ila Allah ilaahay xaqiisa in loo cararo xudurka dood cilmiyeed ciibaankeedu ahaa doorka culimada ay ku leeyihiin xaq jirka iyo qofka ka baxa xadka shariicada ayaa laga soo jeediyay kulanka iyada oo culimada lagu casuumay ay soo jeediyeen kelmado kooban billahi alaykum wixii ka dhaca zoobaan sheegana soo leeyahay diina wada wadiinu yalcanu wixii ka dhacay harkaaya saamaha oo ardadii lagu laayay aan sheegana asoo Allahu akbar ku bilaaba wadiinu yalcanu wixii ka dhacay oo ardadii iyo macallimiintii iyo wasaaradii iyo waxgaradkii lagu laayay hotel shaamo aan sheeganaya asoo diina sheegana leeyahay wadiinu yalcanu kuwana dilahaya intayna dili lahayeen diinta hay iska daayeen anoo heeseen bay qolatiin anagu waxa leedahay marka nimanka diintooda khaldan iyo fahamkooda khaldan daawadiisu diin la'aan ma ahane waa diin sax ah way fahamkooda khaldan daawadiisu faham sax ah way laakiin haddii laga dhigo daawada in diinta laga tago diinta khaldan daawadeedu waa in la heesaa waa in diinta wax laga sheegaa waa in laga tagaa shareecada waa in saas la yeelaa haddii halkaas la aado daawo la gaari maayo wallahu aclam ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay xusuustii qaraxii Soobe ayaa soo jeediyay in loo midoobo sidii dalkan dhibaatada haysta loo qaadi lahaa su'aal baan isweydiiyay xaqiiqdii culimadii ugu wanaagsaneed waa haysanaa dalka qof kastoo Soomaali ah gabar iyo wiil hooyo iyo aab diinteena qalbigeena waa ku xoogan tahay diinteena waa aaminsanahay aad bay u yar yihiin inta aan salaada dukan oo shayga ugu horeeyo islaamka ah dadka Soomaaliyeed waa muslim boqolkiiba boqol tukada haddana waxaan la yaabanahay in qulubteennii aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsaneen oo aan isticmaalaynay 24 hours marka su'aashu waxay tahay sidee lagu gaarsiiyaa qulubta dadka Soomaaliyeed inay xaq u Allah tuso haddaan wax yar tusaale u soo qaato maalinta shilka dhacay dad fara badan ay ku dhinteen ninka qaraxa waday waa qof muslim oo Soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay weliise waxaa nool oo ilaa hadda nool saan aaminsanahay kii u soo fududeeyay kii u soo farsameeyay iyo kii soo alifayba Haajar Cabdiqaadir RTN TV Muqdisho